waxaa si xoogan u soconaya barnaamijka gogol xaarka dib u soo celinta shirkadii Somali Airlines iyo waliba diyaaradaheeda muddo sanadaha kadib wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Omar ayaa maanta waxa uu booqday xarumaha cilad bixinta diyaaradaha qaaska ee madaxda iyo waliba kuwa shacabka ee shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines. wasiirka iyo waliba wafdigiisa ayaa waxa ay soo inayeen qaabka ay u socoto shaqada lagu cilad bixinayo dhowr diyaaradood oo nooca waaweynka ee Airbus-ka loo yaqaan iyo waliba kuwa yaryarka. injineerada gacanta ku hayay xaruntan ayaa waxa ay sharaxaad ay siinayeen wafdiga iyaguna ka sheekeynayay marxaladihii ay soo martay iyo waliba goobaha cilad bixinta ee diyaaradaha Turkiga. iyaduna wasiirka iyo waliba khubaradii la socotay ee ka soo shaqeeyay Somali Airlines lagula dardarmay in ay muhiim ay tahay in la helo goob noocan oo kala ah inta aysan howlgelin Somali Airlines. xarunta tababarka duulimaadka ee Turkish Airlines iyaduna waxa ay ka mid ahayd goobihii ay booqdeen wafdiga. baylodyo baryaalka xaruntan ayaa wafdiga sharxaad siinayay qaabka iyo waliba sida loo qaato dadka doonayo inay bartaan duulinimada. And we will move to the next door bay where there's an available solution that our captain can demonstrate. wasiir Omar iyo waliba duuliye sare Ciidruus ayaa waxa ay gudaha ay u galeen qalabka lagu barto duulinimada qalabkaasi oo u samaysan sidii diyaaradii oo kale iyagoo tijaabo duulimaad sameeyay. wasiir Omar iyo waliba duuliye sare Ciidruus ayaa tijaabadii ay sameeyeen ku guuleystay. sheekada aadka ay xiise gelisay ayaa waxay ahayd sheeko dhex martay kabtankii hore ee Somali Airlines mudane Ciidruus iyo waliba duuliye ka tirsan xarunta Turkish Airlines. kadib markii duuliyihii Turkiga uu weydiiyay kabtan Ciidruus diyaaradihii uu soo duuliyay, kabtanka ayaa waxa uu ku jawaabay dhowr diyaaradood oo isugu jira kuwa rakaabka iyo waliba kuwa dagaalka, isagoo soo tiriyay 5 nooc oo ka mid ah diyaaradaha. kabtankii Turkiga ayaa gacan geliyay kabtan Ciidruus isagoo uga jawaabay waa in aan ku dhaha macallin. taasina waxa ay ku cadaynaysaa heerka ay gaarsiisan tahay aqoonta duuliyaashii Soomaaliyeed. إلا حتى على سوق السنة وزيرك سعينت ودالي حتى جميع الوزار ولا تصير وسع إلا سمار الناس دوليال عصور وتابر لها فسمي قانون إنجنير وزار لها طريق يبين واحنا وكان هذا ماشان عن جنة سلسلة يعني مقالتي كل سراشين جود المسكورة شعورت أنا شعورت أنا صح مرة جود المسك حاجة ودك وصبرت وحصف أنا جبوتي دار السلام كينيا ما نبغى باتيجي ما شاء الله هذا wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay kormeerkii uu ku tagay qayb ka mid ah xarumaha waaweyn ee Turkish Airlines. waxaan booqasho ku tagnay Turkish Technique iyo Turkish Aviation Schoolka. labadaba waxaan raadinaynaa inaan ka soo barano ama aan fiirino inaan la samaysan karno xiriir ku saabsan sida diyaaradaha loo hagaajiyo marka ay xumaadaan wax ka xumaadaan. soo hangarada diyaaradaha oo dhan waxaan tagnay meelo waaweyn oo diyaaradaha nooc kasta oo leeyihiin lagu sameeyo haddii ay wax gaaraan ama dib cusboonaysiin lagu sameeyo diyaaradaha. إن شاء الله تعالى وحيابها أدوني إن ودك كسمينه ودكتين إيربورت هذه الرو certification إسكال لبلا كل الدول إنه لكل ما وإنه إيربورت هنجر هذا سأيانا كشقين إن سيدي أن كسمي سنلهن أما private اللي كسمي سنة أما دولة تركيا Turkish Airlines إن أن وضع سمي سنة دولة كرر المقدار maalinta jibcaha ayaan arrintaasi kala hadli doonaa CEO-ga dowladda laakiin maanta meesha ayaan kormeer ku soo marnay isaga oo size kala duwan ana waan soo aragnay diyaaradaha noocyada ay hagaajiyaan mechanic-intii electricians iyo dadka technicians ka ahaa oo dhan waan soo aragnay alxamdulillah. kadibna waxaan tagnay aviation schoolka meesha pilotyada lagu tababaro. ujeedada aan halkaas u tagnay waxay ahayd CEO-ga chairman-ka oo Turkish Airlines ayaa wuxuu naga codsaday inaan halkaas soo fiirino si aan uga wada hadalno Somali Airlines insha Allah taala pilotyada aan rabno in loo train gareeyo
meesha aan rajaynayna in lagu train gareeyo weyn hadduu ilaahay ka raali noqdo isagana jimcaha ayaan wixii go-aankii ugu dambeeya aan wada qaadan doona hadduu ilaahay ka raali noqdo. سلمان جمال سعيد تي في عالمي يونيفرسال مقالة اسطنبول.